haddii aan isla fiirino mabda la yiraahdo 80 halku ka yimid runtii nin dhaqaalayahan ahaa oo Talyaani ahaa oo magaciisa la dhihi jiray Fruto Brutal magaciisa inuu soo saaray malena qaacidadan waxa la yiraahdaa Pareto's law ayaa lahaa 80 qaacidadan asaga markuu wuxuu ku sheegay boqolkiiba 80 dhulka Talyaaniga waxa degan boqolkiiba 20 dad Talyaani ah qaacidadan marka waxay sheegaysaa boqolkiiba 80 maxsuulka wax walba waxay ka yimaadaan boqolkiiba 20 inta la geliyo dadaal ama effort qaacidadan marka waxa loo isticmaalay qayb walba oo kamid ah nolosha dhaqaalaha ganacsiga sportiska computerka wax walba annaga marka hadii aan ku dabaqno wax akhriska ama wax barashadeena iyo wax akhriska wax la xiriiro marka ku dabaqno maxay noqonaysaa hadii marka aad dabaqno waxa leenahay boqolkiiba 80 book ama chapter wuxuu doon ha ahaadee macluumaadku ku jiro waxay ka imaanaysaa ama aan ku fahmaynaa boqolkiiba 20 oo aan indhayna oo kaliya waaw marka isweydii adiga sidee boqolkiiba 20 oo waqtigaaga kamid ah u gelin kartaa book isla markaasna aad u heli kartaa boqolkiiba 80 oo ah faa'iidada buugaas jawaabtu wax kale ma ahan ee waatan waa kaliya habka wax akhriska badan oo ah multiple reading process wuxuuna dhahay aan u kala qaadno marka ugu horeyso preview overview iyo conclusion oo ah eegis ama fiirfiirin kadibna overview maxaa waaye guudmar iyo ugu dambeyntii gudaha u gelid oo ah akhrin marka anagoonan u gudbin qaybta akhrinta ah kaliya hadii aan sameeyno eegis iyo guudmar hadii aan ku sameeyno buug walbo waxa nooga baxayo 20% oo dadaal ah waxaana ka heli doonaa buugaas oo aan fahmi doonaa boqolkiiba 80 waxa uu ka hadlayo markaas ayaa waxa go'aansan doonaa ma yahay buugan mid u qalmo waqtigeena oo ma tahay in aan gudaha u galno si fiican u akhrino mise ma ahan midna anfacayo waa iska dhaafeynaa marka qaacidada hadii aan ku dabaqnay waxay noqonaysaa 20 daqiiqo oo waqtigeena kamid ah ayaa gelinay buugaas dhan kadibna waxa ka faa'iidnay 80% macluumaadka ku jira buugaas anagoo isticmaalayno habka wax akhriska badan ee loo yaqaano multiple reading process marka hadii aad rabtid in wax akhris wax soo saar leh aad samaysid waqti yar waliba isticmaal qaacidada 80 waayahay waxaan rabnaa inaan akhrino buug isla markaasna ma haysano waqti nagu filan waxaana haysto jadwalada adag ee nolosheena shaqadeena waxbarashadeena iyo qaybaheena kala duwan isla markaasna waxa u baahanahay inaan dhaqan gelino wax akhris sidee marka ku akhrin karnaa buug anagoon waqti badan haysanin waatan jawaabta talaabada koowaad buuga marka ugu horeyso kala fur ka bilow hadii ay jirto buugaas qofka qoray magaciisa iyo markino dadu u mahad celinaya hadii ay jiraan mararka qaar qorayaasha waxay qoraan buuga qaybahooda ugu horeeyo sababaha ku kalifay buugaas inay qoraan oo runtii noqon karto adiga rabo buugaas inaad akhrisid mid faa'iido ku noqon karto kadib weli talaabada koowaad ayaa joognaaye buugaas qaybtiisa ugu horeysa markaa fiirfiirisid u gudub qaybta cutubyada ama qaybta ay ku qoran tahay table of contents yani ciwaanada uu ka kooban yahay buugaas indhaha mari hadii labadaas arin aad samaysid u gudub talaabada labaadna waxa waaye u gudub buuga inaad fiirisid qaybtiisa hordhaca ah qaybta hordhaca iyo qaybta conclusion-ka ah ku samee preview buugaas qaybta hordhaca ah hadii jabtarada dhan aad fiirin kartid aad ay u fiican tahay sida badan buugaagta waxay leeyihiin hordhac iyo qaybta ugu dambaysa ee ah khulaasayn ama summary ama conclusion intaba waa dhihi kartaa fiirfiiri hadii buuga markaas aad akhrinaysid adiga uusan lahayn summary waxa kaaga filnaan karto kaliya inaad ka akhrisid qayb walba qaybteeda hordhaca ah habkan hadii aad raacdid sida badan waxay kugu qaadanaysaa 10 20 ilaa ugu badnaan 30 daqiiqo inaad buug oo dhan kaga dhaxbaxdid waxayna kaa caawin doontaa buugaas inaad xog badan ka heshid macnaha adigoo waqti yar ku bixinayo waxa kugu la talinayaa marka arintan in aad samaysid muddo isbuuc ah ugu yaraan 20 daqiiqo oo waqtigaaga kamid ah inaad siisid waxaadna gaari doontaa insha Allah buugaag fara badan oo garbadkooda ama ciwaanadooda ay ku soo jiiteen balse aad waqti aad ku akhrisid weysay in ayaga dhan qulaasayn doontid oo aad dul mari doontid insha Allah wararka iyo joornaalada markaan fiirino wararka iyo joornaalada badankood waxay u nidaamsan yihiin qaab loo yaqaano ahraamta la furaariyay ama upside down pyramids maxaa loo jeedaa ahraamta la furaariyay waxa waaye badanaa sida badan hadii aad fiirino joornaalada ka jiraan caalamka waxa loo diyaariyaa
qaabkan qaybta ugu koreyso waxaa lagu qoraa macluumaadka ugu muhiimsan uu ka hadlayo markaas journalkaas haddii aan lahayd yaa waaye maxaa dhacay maxaa la sameeyey sidee loo sameeyey sababta loo sameeyey see u dhacday iyo wax la mid ah macluumaadka ugu fara badan ee uga baahnaan lahayd journalkaas kadibna qaybta dhexe waxaa lagu qoraa macluumaadka dhexe qaybaha hoosena wax badan ma jiraan waxa u akhrin kartaa marka ugu horeysa inaad fiirisid labada sadar ee ugu horeysa uu ka bilaabanayo journalka kadibna aad ku dabaqdid qaacidada hadda aad soo qaadana ee ahayd 80-20 mabda'aas ayaa ma arkin oo ku dabaqi kartaa kadibna waxa ku soo baxayo journalkan inuu yahay mid ku anfacayo oo u baahan tahay inaad wada akhrisid iyo inuu yahay mid aanan wax badan ku tareynin oo aad ka tagi doonteed way jiraan journalo fara badan oo aanan u qornayn qaabkan oo ah ahraamta la foorariyay ama upside down pyramid marka si aad u kala saartid journalkan hadda aad fiirinaysid ama akhrinaysid ma wuxuu yahay journal u diyaarsan qaabka caalamiga ah ee upside down pyramidka ah mise qaab kale waxaa ku fiirin kartaa qormada markii aad fiirisid badanaa journalada loo diyaariyey qaabkan oo ahraamta la foorariyay ah waxa waaye qormadoodu way gaaban tahay يعني aad ma u fogo dhinac marka ka soo bilowdo ilaa dhinac kale dhaxday ku egtahay badana dhinacyadana journalada badana oo noocaas loo diyaariyo waxa lagu sameeyaa xayisiino dhaxda ayuu ku qoran yahay qormada qaybta hoose ayuunan u dhamaanayaa macluumaadka ugu badan ee ugu muhiimsan qaybta kora lagu qoraa qaybta dhexe iyo qaybta hoosena waxyaabo badan oo aanan muhiim zaid ah lahayn ayaa lagu qoraa journalada caalamiga ah markay ugu caansan ee qaabkaas u qoran hadda waxaa ka mid ah inta ogahay journalka loo yaqaano Daily News Journal iyo journalka la yiraahdo Wall Street Journal marka uu imaano majaladaha runtii aad ay u waaweyn yihiin marka loo fiiriyo journalada saadaradeeda majalada markii aad rabtid inaad akhrisid waxaa isticmaali kartaa qaabka la yiraahdo hab akhrinta badan ee ah multiple reading process maxaa yeelay majaladaha waxay ka kooban yihiin maqaalo kala duwan marka adigana maqaaladaas kala duwan waxaa laga yaabaa qaarkood inaadan u baahnayn qaarna aad u baahan kartid saadaradeeda waxaa samayn kartaa qaabka hab akhriska badan adigoo isticmaalayo in aad fiirfiirisid kadibna aad guud martid kadibna markaas aad go'aan gaartid artikalada kala duwan inaad ka bilowdid hordhacooda iyo conclusion-kooda kadibna ciwaanada kala duwan aad fiirfiirisid sidaas si lamid ah hadday sawiro leeyihiin iyo jadwalyo wax lamid ah hadday leeyihiin qaabkii aan hore usoo aragnay ugu dambeyntii markaas aad go'aan ka gaartid ma yahay majalladan khaas ahaan articlekan midkii ku anfacayay iyo ma ahan miyaa kii ku anfacaya calaamad gaar u samayso ka gudub kuwa kale u gudub waxaa laga yaabaa qaar badan inaysan ku anficin isaga gudub kuwa ku anfaca si gaar oo calaamayso kadib u imaaw si toos ah u akhri qaabkaas ayaa ku akhrin kartaa majallad walba buugaagta muqarrarka ah ee aan ka qaadano goobaha waxbarashadeena aad iyo aad ayay muhiim u yihiin inaan in badan akhrino sababtoo ah macluumaadka naga dhigi karo waxa aan baranayno inaan ku guuleysano ayaa nooga duugan buugaagtaas muqarrarka ah saa daraadeeda iyagana si aan u cover garayno oo wax badan uga akhrino waxaa in badanna caawin doono habka wax akhriska fudud ee loo yaqaano multiple reading process saa daraadeeda waxaa samayn kartaa buugga wuxuu ka kooban yahay jabtaradaas inaad kala qaadid kadibna aad u martid qaabkii ahaa eegis guudmar kadibna gudaha u gashid oo aad akhrisid buugga muqarrarka waa ku qasban tahay ma jiraan jabtaro aad ka gudbi kartid iyo jabtaro gaar ah ay tahay inaad akhrisid way dhici kartaa macallimiinta mararka qaar inay ku recommend gareeyaan ama ay ku soo jeediyaan jabtarada qaar inaad akhrisid laakiin sida guud waxaa fiican buuggaaga muqarrarka inaad in badan ka akhrisid si aad u noqotid ardayga waxa uu baranayo heer sare ka gaaro ama ku wanaagsanaada marka haddii hore aa u ahayd qof ku dhiban qaabka uu akhrin lahaa buugaagtiisa muqarrarka ah ku rafaadsan wax walba uu akhriyo inuu iloobo tan marka waxay kaa dhigi doontaa insha Allah qof awood sare u leh sida uu kor ugu qaadi lahaa xawaaraha akhriskiisa fahamka buugtiisa uu akhrinayo isla markaasna xasuustiisa uu aad iyo aad u sare qaadi karo markii maalmaha imtixaanka la gaarane uu noqon doono xidig ka wanaagsan ardayda kale oo dhan jantus oo luqada qalaad lagu yiraahdo jartis inta in leeg oo naga mid ah ayaa la kulmeen caqabadahan oo kale iyagoo akhrinayaan buug in ay arkaan buugga markay muddo akhriyaan ama qormo noocay doonto ahaato markay muddo akhriyaan inay u yimaadaan tusaale figure 2.5 oo kale figure 2.5 markii ay arkaan kadibna ka socday oo qormadii akhriskeeda dhamaystirtay markaas ka gadaale markii qormada akhriskeeda aad dhamaysayne in aaday figurkii ama sawirkii lagu tilmaamay markaas aad soo fiirisay kadibna ay kugu dhacday sawirkii inaa wax badan ka fahmi weysayba in badan oo naga mid ah way nagu dhacday anigana ka mid ah dadka in badan ku soo dhacday okay waxa isweydiinaynaa marka
goormee la fiiriyaa sawirada ku jiro qormadaada ama goormee la fiiriyaa sawirka markuu ku yiraahdo figure 2.5 oo kale goormee la fiiriyaa ma waxaa la fiiriyaa maadaama uu sawir ku jiro qormadan marka ugu horeysay ee aad bilaabaysid qormada miyaa la fiiriyaa maya ee ma waxaa la fiiriyaa qormada markii aad tagtid sawirka miyaa la fiiriyaa mise waxaa la fiiriyaa marka aad qormadii dhammaysid oo aad soo jeesatid ayaa sawirka la fiiriyaa jawaabtu waa tan waxaa fiirinaysaa markii lagu dhaho sawir hebel hebel oo numberkaas leh marka lagu dhaho isla markaas waa inaad fiirisaa jooji qormada ee akhrinaysid haddii lagu yiraahdo tusaale sawirka ama figure 2.4 figure 2.5 oo kale lagu dhahay waa inaad joojisaa isla markaas kadibna aad fiirisaa sawirka maxaa yeelay qoraayaasha badankood sawirka waxay ugu talagaleen inay wax kugu fahamsiiyaan saa daraadeeda ma fahmi doontid qormada ka dambayso meesha sawirka lagugu diray haddii aadan markaas fiirinin sawirka waxaa arki doontaa in badan oo ka mid ah bugaagta ama qormooyinka sawir marka lagu diro oo aad sawirka soo fiirisid oo aad soo laabatid oo qormadii aad hore usii wadid waxaa arki doontaa in lagu dhaho sida aad kusoo aragnay sawir hebel hebel sawir figure 2.5 oo kale sida aad kusoo aragnay waxay leedahay noocaas iyo noocaas dadka baranaya caafimaadka aad iyo arrintaas muhiim ugu tahay iyo khibradeyda inta aad ka arkay akhrinta bugaagta kala duwaneed ee aad soo akhriyay marka waxaa iskula talinaynaa haddiiba ay ku jirto figure kada kada haddii ayba kugu jirtoba marnaba arrintaas ha iska indha tirin jooji akhriska ee u gudub ee u bood sawirka meeshuu ku yaalay raadi kadibna sawirka soo fiiri kadib usoo laabo qormadaada ee meeshaada kasii wad maxaa yeelay qaacido ingiriis ah waxay leedahay a picture is a worth of 1,000 words oo ah macnaheeda sawirka wuxuu ka qiimo badan yahay kumanaan erayo ah hal sawir ayaa wax badan lagugu fahamsiin karaa shaashadaha wax laga akhriyo marka uu nimaano dhammaan techniqueskan ama farsamooyinkan ee aan kusoo baranay koorsada waxaa ku dabaqi karnaa anagoo wax ka akhrinayno shaashadaha wax laga akhriyo sida iPad-ka tabletyada kombiyuutarada iyo Kindle geedkan la yiraahdo yar oo akhriska loogu talagalay waxaa isticmaali karnaa waxa la yiraahdo hagaha oo ah anagoo isticmaalina farteena haddii tabletka ay haysan uu yar yahay farteena waxaa dhici karto marar badan qormada inay naga qariso taas bedelkeed waxaa isticmaali karnaa qalinkeena anagoo rogno oo qaybtiisa dabada ah ugu qabanno isla markaasna aan kula soconno from left to right inka bidixda ilaa dhanka midigta sidaas wax u aqrino haddii ay carabi tahayna saas oo kale sidii qaybihii hore ugu soo sheegnay tabletyada iyo waxyaabaha shaashada marka wax laga akhrinayo waxaa aad iyo aad laga maarmaan u ah in aad iska reebtid ama aad iska joojisid waxyaabaha ku carqaladeyn karo sida internetka kale internetka inaad iska xirtid si aysan kuugu soo dhicin dhammaan notificationada kaaga imaanayo qaybaha kala duwan ee social media waxaa kaloo isticmaali karnaa qaabka ku hagaajinta indhaha ee qormada sida badan qormada waxay ka kooban tahay laba qaybood labadaas qaybood maadaama ay ka kooban tahay badana paragraafyada inta u dhaxayso joogsi ilaa joogsi kale yani waxay ka kooban tahay 3 eray ilaa 7 eray markii sadarka la fiiriyo saadaradeeda indhaheena marka waxay kari karaan in ay fiiriyaan oo ay ku hagaajiyaan indhaha 3 eray 4 eray iyo wax la mid ah saadaradeed waxaan rabnaa marka anaga inaan gaarno anagoo sameynayna practice badan inaan gaarno indhaheena in ay halkii mar focus ku sameyn karaan ilaa 7 eray taas marka waxaa lagu gaari karaa in badan oo ku celcelin ah ama practice badan adigoo ka akhrinayo shaashadaha wax laga akhriyo waxaa kaloo muhiim ah marka aad shaashadaha noocan ah wax ka akhrinaysid runtii in iftiinka iska yaraysid waxaa jiro laba layer oo ka imaanayo shaashadaas aad wax ka akhrinaysid midna waxaa la yiraahdaa blue light oo ah mid aad u halis badan mid kalena waxaa la yiraahdaa night mode yani qaabka habeenkii waaye blue light-ka aad iyo aad u indhaha ugu dhacaa saameyn xoogan ama xun ayuuna ku yeeshaa ma wanaagsano indhaheena iyo araggeena haddii muddo badan aad blue light-ka wax ku akhrisidna waxaa dhici karto araggaaga inay saameyn ku yeelato saa daraadeed waxaa habboon in iftiinka aad iska yaraysid ama night mode inaad dooratid haddii marka aadan sidaas samaynin waxaa kugu dhici karto waqti yar gudihiisa inay indhahaaga daalaan kadibna wax akhriska aad sii wadi weysid marka waxaan rajaynayaa insha Allah in badan practice gareyn doontid adigoo wax ka akhrinaya shaashada